madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaaladan Carta oo 40 kiiloomitir u jirta caasimadda waddanka Djibouti waxaana halkan u yimid si uu ugu mahad celiyo dadka ku nool magaaladan gaar ahaan doorkii ay ku lahaayeen dawladnimada Soomaaliya ay maanta haysato madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Carta isagoo halkan kula qadeeyay mas'uuliyiinta waxgaradka reer Carta waxaana uu caawa ku hoyan doonaa magaaladan gudoomiyaha gobolka Carta ayaa sheegay in imaanshaha madaxweyne Farmaajo ee deegaankan ay sharaf u tahay dadka reer Djibouti anoo cilmi buuxid cadaa waxay noo tahay sharaf weyn maantana madaxweynihii Soomaaliya Farmaajo na xasuustay ducana aan ku lareynaa xilka uu hayo ee Soomaalida oo dhan ay maanta u dooratay dawladda federaalka ee Soomaaliya u dooratay inuu Ilaahay la qabto inaan annagu reer Carta hadaan ama reer Djibouti dhamaantiiba shicibka reer Djibouti iyo madaxweynaha iyagu Ismaaciil Cumar Geelle aan duca ku lareynaa axada oo ah hooyo halkan ku iibisa alaabta hidaha iyo dhaqanka ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in madaxweyne Soomaaliya ka socdo uu halkan ugu yimaado si uu xasuusto dadaalka ay ku bixiyeen shirki Carta biskiyaasiinka maanta anigu warto in shuxuur gaar ay igu dhalisay madaxweyne noo yimiday madaxweynahaygii kale labaadun buu noola mid ahaa kayagii buu noola mid ahaa ka noo yimid oo waliba asagu imaka nin meel ka yimid oo nagu xil ahaa sidoo kale mid kamid ah hooyooyinka Carta ku nool ayaa kula dardaarantay dadka Soomaaliyeed in ay garab istaagaan dawladooda anagu madaxweynaha waan taageeraa aabaan nidhahnaa waa soo dhaweynaa waan u rayaaqnaa iyo kuna madaxweynaha soo dhaweeyaan inay rag iyo dumar u rayaaqaan inay dhalinyartu kalsoon tahay inuu haweenku kalsoon yahay anagu kuna rajaynaynaa uguna ducaynayna shacab iyo dawladba markasta way garab taagnaayeen dadka Soomaaliyeed si ay uga soo kabtaan burburkii ku dhacay waana tan madaxweyne Farmaajo oo lagu doortay magaalada Muqdisho oo halkan maanta u yimid si uu uga mahad celiyo shacabka reer Djibouti gaar ahaanna kuwa ku nool deegaankan Ali Baashi Cabdullaahi magaalada Carta waddanka Djibouti